بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida daafaheeda ka joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa si gaaban inaan uga hadlo doodii maalmahan ka socotay baraha bulshada ee dhalisay dooda badan iyo hardanka iyo kala duwanaanshaha keentay xagga fikirka iyo xagga maaragtay aragtida intaba. waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo culimadii Soomaaliyeed ee sida degan ee nasaaxada leh sharafta leh arintaas uga falceliyay ina soo jeediyay si gaar ah ama si guud waxa ku haboon qaladkii ka dhacay khudbadii aan ka jeedinayay dalka Jarmalka. waxaan kaloo rabaa inaan halkan isaga cafiyo culimadii ayagana aniga sharafteyda ama cirdigeyga ama diinteyda gaaray. waxaan rabaa si ilaahay dartiis ah inaan ayagana isaga cafiyo. waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka dhiidiyay oo u arkay dulmi aniga la ii geysanayo ama la igu beegsanayo ama mid la soo abaabulay oo aniga igu aadan oo aanan ku aadanayn khaladkii ku jiray khudbadeyda ee ka baxsan ee arintaas ka falceliyay. ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. sidaan hore u sheegay waxaa magafa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga keliya ayaana ah qofka aanan gafin. kullu ibni aadan nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khata wa khayra khataa'uuna attawaabuun. qof kasta oo bini aadana wuu gafaa waxaana ugu khayr badan qofka gafa qofkii ka tooba keena. abwaan Soomaaliyeedna wuxuu yidhi gafka bashar baad u tahay inaad ka garaabto qalad gobbay caadada tahay. waxaan rabaa inaan caddeeyo sidaan markii hore u caddeeyey anigu marna inuu qasadkayga ahayn xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ee la sheegay ee saxiixeynka ku yaala dooda ay ka dhalatay inaanan diidanayn oon ictiraafsanahay xadiiskaas inuu yahay xadiis saxiix ah matnigiisa iyo macnihiisa iyo lafdigiisa intaba. waxaan kaloo ictiraafsanahay sida nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam oo uga bixiyey fasirka iyo fasiraadda iyo tafsiirka uu ka bixiyey. waxaan kaloo ictiraafsanahay diinteena samaawiga ah oo quraanka kariimka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam u horeyso inay tahay diinta xuquuqda ugu badan siisay dumarka iyo haweenka. waxaan sidiidanahay oo sidaas daraaddeed wax allaale iyo wixii khalad ah ee khudbadaas ku jiray waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inuu arintaas iga cafiyo asagaanan uga tooba keenaya anuu aaminsan toobad cid iskale inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aysan qof bini aadana toobada aysan lahayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wixii gaf ah oo khudbadaas ku jiray ka weydiisanayaa tooba. waxaanse markasta diidanahay oona u taagnaa doona hadduu ilaah yidhaahdo in ayadoo diinteenna ay tahay sunnadeena nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka ay yihiin waxaa ugu badan ee dumarka siiyey xuquuqda in uu jiro dhaqan guracan oo bulshadeena ku dhex jira fasiraad qaldan oo diinta laga sameeyey oo lagu dulminayo xuquuqda dumarka. kaas waan diidanahay waxaan ahay qof u taagan inuu ka hortago dulmigaas ka dhiidhiyo difaacana xuquuqda dumarka ay siisay shareecada islaamka. sidaan ognahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam habluhu waxay ahaayeen senior councilkiisa wax la yidhaahdo taladii golihiisa saray ku jireen. islaamka ayagaa ugu horreeyey nabiga wax rumeeyey ayagaa qofkii ugu horreeyey u dhintay diintan ayagay ahaayeen. ayaga kaalin aysan ka qaadan diintanna ma jirto. qur-aankeena kariimkana saan hore u sheegay wuu ammaanay haween soo jeediyey adduunkan tala soo qabtay wuu ammaanay. sidaas daraaddeed waan u taaganahay inaan difaaco cidaan uga cabsanayo ama uga gambanayana ma jirto. xuquuqda iyo kaalinta siyaasadeed iyo kaalinta bulsho oo qur-aankeena kariimka ah siiyey haweenkeena. sidaas daraaddeed waxaan rabaa in dhacdadaas dhacday iyo falceliskii ka yimid iyo wixii dadka kala gaaray dabcan doodaha dhammaantood intooda badan waa arkayay ama kuwa ka imaanaya culummada ama kuwa ka imaanaya dadweynaha
ama kuwa ka imaanayo taageerayaasha ama kuwa ka imaanayo kuwa iga soo horjeeda ama kuwa ka imaanaya siyaasiyiinta intaba waan arkayay waana ii muuqdeen sidaas daraaddeed anigu qof kasta oo arrintaas wax igu yeeleeyey ama wax iga soo gaaray waan cafinayaa qof kasta oo aniga aan dhibaato u geystay ama gaf iga tabanayana waxaan rajaynayaa asagana inuu iska kii cafiyo arrintaasna ay soo xiranto halkaasna ay ku dhammaato dhammaanteen dadka soomaaliyeedna ay is cafiyaan culimmadana waxaan ugu baaqayaa mar kale inaysan la kala safan siyaasiyiinta siyaasadda rag baa isku haya taladeeda rag baa isku haya waxaan rajaynayaa inaysan dhinacna la safanin oo aysan dhinacna u beerin haddii aan la kaftanama anigaaba xadiiska iyo qur-aanka iyo sunnada ku dhaama kuwa hadda talada hayee haddayba cid u janjaarsanayaanba waxayd anigana iisoo janjaarsadaan laakiin aniga waxaan rabaa inay culammadu noqdaan kuwa u dhexeeya dadka oo aanan garab la safnayn kuwa u hiiliya cadaaladda oo xaakimka hadduu qaldan yahay iyo midka mucaaradku ahba qaldan yahay wada qabta laakiin aanan indhaha ka laabanin dulmiga xaakimka oo keliya aanan ku teegteegsanin qaladka ay ka arkaan qofka asaga ka soo horjeeda waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay is cafiyaan waxaan ugu baaqayaa arrintaasna inaan iska xirno jabtarkaasna uu soo gabagaboobo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu